iyadoo dhammaan degmooyinka gobolka Sool uu maansheeyay raxmaadkii Eebe Gugu ayaa isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ay wehelinayaan mas'uuliyiinta waaxaha kala duwan ee wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool ayaa deeq dawooyin gaarsiiyay xarumaha caafimaadka ee deegaanada kala baydh dabataag dhumay xirxir saaxdheer iyo degmada Dharkeyn ee gobolka Sool dhammaan odayaasha iyo madaxda xarumaha caafimaadka ee deegaanadaasi ayaa sheegay inay baahi weyn u qabeen dawooyinkan la soo gaarsiiyay xilli uu roobkii u daay ayna ka cabsanayeen inay dilaacaan xanuuno kala duwan istuwa ka horeeya adiga ka hor isduwa nooma imaanin aad iyo aad baan ku salaamanaa waan ku soo dhaweynana waa degmadaadii weeye horena loogu imaan jirin meeshan xanuuno far badan baa ka jiray maadaama aad maanta noo timaadeen daawona noo sidaan waa in soo dhaweynana boqolkiiba boqol baan ku soo dhaweynana waxaan leenahay soo dhawaada daaway hadda soo gaarsiin hostaalka aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa istuwaha iyo shaqaalaha kale gobolka waa soo dhaweynana waa magaaladiinii السلام عليكم dhammaantiin horta aad baan idin salaamay wasaaradda anagoo isku duuban oo ah shaqaalaha saxdheer MCH runtii aad baan idin bogaadinaynaa maanta dawada noo keenteen waana idinka gudoonay aad baan u mahadsantihiin waxaan idin leenahay markii koobaad aysan noqon insha Allah soo laabato aadna waxa ugu maalnaa isduwaha wasaaradda gobolka Sool iyo dhammaan inta la socota dawada saakana uu keenay magaalada Dharkeyn geeye MCH-keeda waana ka guddoonay dawadii fiicneed uu noo keenay isduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Sool ilaahay baan ugu mahadnaqnaa billahi tawfiiq ما شاء الله ودواء في عن وباهنين وإنه كم حسين وسارد عافمات وكم حسن تاي دودنا إنه كنتي أدبا وكم isuduwaha iyo mas'uuliyiintii safarka ku weelisay ayaa tibaaxay in ujeedada safarkoodu daaran yahay urku galida xaaladda caafimaad ee deegaamadaasi iyo sidoo kale sidii ay u gaarsiin lahaayeen deeq dawooyin oo wasaaradooda ugu tala gashay xarumahaasi sida la soo sheegay safarka maanta waxa uu daaranaa laba shay oo ah indhayn iyo xogaal noqoshada baahiyaha caafimaad iyo xaaladda ay ku sugan yihiin MCH-yada iyo goobaha caafimaad ee kale ee hawdka iyo in MCH-yadii la gaarsiiyo dawooyin ay kaga howlgalaan oo xaaladan isbedelaysa cimiladan isbedelaysa ee abaar laga soo baxay ee naqla galayo wixii xanuuna ay ka dhalan kara iyo lagaga hortagi lahaa ama lagu daaweyn lahaa marka hore waxaan u mahadnaqayaa shaqaalaha MCH-ka ugu nimay saxdheer shaqada adag ay bulshada u hayaan adeega hooyada iyo dhalaanka maanta waxaan u wadnaa dawada waxa ka warbixin doona isuduwaha caafimaadka gobolka Dr. Maxamed Xaaji Khaliif meelo badan waan soo marnay sida kala baydh meelo kale oo gobolka hoostaga oo degmooyina waan rabnaa inaan aadno si aan u ogaano xaaladda gobolka ka jirta iyo xaaladda gobolka ku sugaya maadaama xilli abaareed lagu jiray xilli roobaadna maxaan ku sheegaa uu bilowmay xaaladuna isbedel uu dhici karo haday faa'iido dhowrka tahay haday caafimaadka tahay maadaama aanu nahay maamulka waxyii caafimaadka gobolka intii safarka iyagani kaliya wuxuu daaranaa maanta inaanu xogagaal u noqono oo aanu ogaano baahida caafimaad ee ka jirta deegaanka alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay uu nagu soo simay safarkeenii koowaad inaanu nimaadno degmada Dharkeyn ilaahay baa mahad iska leh baahida caafimaad ee ka jirta runtii waa mid ballaaran runtii una baahan in la darso oo mar walba la dul joogo degmaduna runtii xaruntan weyn ee aynu hadda dhex joogno iyada gacanteeda ku dhisatay runtii waxa caawimaada yaryar mooyaane waa dadku iyaga jaaleedu iyada gacanteeda ka geysatay oo gacantooda ku samaystay insha Allah waxaan rajaynaynaa inay meeshan noqoto goob shaqaysa waxaatiir hesha ilaahay idankiis dawadan nati ugu horeysay noqon mayso insha Allah Samir Saeed Bilkalsan TV la saanad